haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyn yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii anigu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey janaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa oo amar diida sameeyay isla markaasina yiri waraaqada saxiix maadaama ballantii ay ka baxeen filla Soomaaliya farmaajo khayre oo ay had sanadka 2020 in ciidamada mishaarka loo badinayo maadaama al-shabaab ay la dagaalayaan 70% isla markaasina diiday si kastaba ha ahaatee taliyaha booliska ee qaraabada leh madaxweyne farmaajo asna waa uu saxiixay halka uu diiday ninka la yiraahdo taliya Odawa oo yiri ballantii waa ka baxdeen laakiin saxiix ma wasiirka arrimaha wasiirka maaliyadda Mr. Bayle ayaa yiri waraaqada noo saxiix isla markiina markuu waraaqada akhriyay in Odawa generaalka guud ee ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu yiri way ballantii ciidamada ka qaadeen isla markaasina ciidamada waxaan u soo doonay ayuu yiri inay farxaan isla markaasina waraaqadan ballantii waa ay ka maqan tahay taasina saxiix ma isla markaasina amar diida xooggan ku sameeyay waxaana macquul ah madaxweyne farmaajo inuu si weyn ugu carooday iyo khayre isla markaasina iminka uu saxiix laakiin si kastaba ahaatee taliyaha booliska xoogga Soomaaliyeed asiga qalinka uu ku duuga maxaa yeelay farmaajo qaraabo la yahay haddaba waxaa la joogaa xilligii kala guurka ee 2020 isla markaasina 8 bilood oo qura ayaa farmaajo u dhiman waa la kala guuraya waxaa la joogaa xilligii kala guurka ee dawlad kasta ee soo marta dalka Soomaaliya in markaasi la kala haabto qof waliba ama wasiir waliba hantida lagu tabayo isla markaasina maareeyo kasta lacagaha lagu tabayo halkaas isdaba marin xooggan ee ku sameeyay si kastaba ha ahaatee 70% waa uu diiday inuu saxiixa wax ka yar taasi oo loogu galeeyahay inta lacagaha kala ka harsan sanadkan in la luush loo bixiyo isla markaasina doorashada lagu soo dhawaado si kastaba ahaatee warar xasaasi ayaa ka soo baxaya wararka naga soo gaaraya ayaa sheegay in taliyaha ciidamada militariga ee xoogga Soomaaliyeed Generaal Odawa Yusuf Raage ninka aadka u daayar isla markaasina taliyihii ugu daadayara abid ee Soomaaliya geeska Afrika oo diiday inuu saxiixo warqadii lagu fasaxayo mushaarka ciidamada militariga Soomaaliya taas oo markii hore sanadkii hore ballan ahayd in la kordhin doono 2020 warqada uu diiday taliyaha ayaa muujinaysa in aan isbedel lagu sameeynin mushaarka ciidamada oo ay ahayd in sanadkan ama iminka 20 lagu kordhiyo sida lagu sheegay miisaaniyadda sanadka 2020 isla markaasina gabi ahaan ballantii ay ka baxeen taliyaha xoogga ayaa celiyay warqada waxa uuna dalbaday hadii aan la kordhin doonin mushaarka ciidamada ay xukuumadda u sheegto bulshada lagana sheego warbaahinta si aysan ugu arkin in xaqoodii la duudsaday maadaama hore loo iclaamiyay mushaarka kordhinta taas ayaana sababta tahay in meeshaasi oo khilaafka ka jiro isla markaasina waxa uu leeyahay hadii aan qaado mushaaraadkii oo halkaas aagaya waxa macquul ah in aniga nafteyda la qabsado oo la yiraahdo xukuumadii ayaa shaacisay 70% aaway 70% laakiin adinku aa shaacisan oo dhahdaan sanadkani 70% ama warqadani aan Odawa u soo dhiibno 70% ma gaarsiisana oo arrimahaas ayaa nahaysa taas ayaa madaxa keentay in madaxa la isku jiro wasiirka maaliyadda wali kama uusan hadlin arrintaani waxaana la sheegay in uu socdo wada hadallo arrintaasi ku aadan oo ra'iisul wasaaraha gadaal ka riixayo maadaama xilligii kala guurka uu la joogo 70% wixii ka soo hara ama qorshaha sidii hore haduu yahay meeshaasi waxa ka soo baxaya miisaaniyad culus taasi oo lagu dagaalami doono doorashooyinka soo socota dhinaca taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Xijaar ayaa dhankiisa saxiixay warqada fasaxa mushaarka iyadoo aan isbedel lagu sameeynin laguna soo kordhin wax kharash ah oo ah tii hore loo saxiixay isla markaasina dusha ayuu u riday maadaama madaxweyne farmaajo qaraab la yahay waxaana la filayaa in booliska Soomaaliya mushaar loo sameynin mushaar kordhinta uu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre taas ay tahayna uu aqbalay taliyahani booliska Mr. Xijaar dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wali bixin mushaaraadkii ciidamada waxaana socda dooda arrintaani ku saabsan iyadoo la isweydiinayo sababta keentay in ilaa iyo hadda aan la bixin xuquuqda ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya iyo mushaar kordhintii la ballan qaaday taasi oo dawladda federaalka Soomaaliya miisaaniyadda ay ku saxiixday isla markaasina sheegtay in ciidanka qalabka sida lacagta loo kordhin doono taasina daaqada ay ka baxday waxaana sababtaasi ay u tahay xilligii filla Soomaaliya oo gabagaba ah madaxweyne xaaf uu shaaciyay inuu safiirka Mareykanka faragelin ku hayo arrimaha galmudug isla markaasina markii ugu horeysay ka soo hadlay ninka loo magacaabo Axmed Geyle Ducaale Xaaf madaxweynaha garabka galmudug isla markaasina ku sugan gaalkacyo oo wali sheegtay madaxweynaha galmudug ayaa war saxaafadeed oo soo saaray kaga hadlay xaaladda maamulkaasi gaar ahaan markii dhawaan soo yeeray hadalkii ka soo yeeray safiirka Mareykanka Soomaaliya isla markaasina qorqor uu hambaliyay qoraalka ka soo baxay xafiiska Xaaf oo haatan fadhigiisu yahay gaalkacyo ayaa lagu sheegay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto uu faragelin
fargin qaawan ku hayo arrimaha galmudug isla markaana uu taageero maamul lagu dhisay afgembi waa sida hadalka u dhigaya Axmed Ducaale Geelle Xaaf. sidoo kale wuxuu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay qaadato doorkeeda ku aadan galmudug iyadoo oo ka shaqaynaysa danaha guud ee maamulkaasi. madaxweyne Ducaale Geelle Xaaf ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Mareykanka inay wax ka bedesho siyaasadeeda Soomaaliya gaar ahaan tan dowlad goboleedyada galmudug isla markaana ay ka laabato go'aankii hore ee ay ku dhawaaqday isla markaasina safiirka Donald Yamamoto oo ku sheegay inay halkaasi taageerayaan Mr. Qorqor. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Mareykanka uu noqday dalkii ugu horeeyay ee taageero doorashada Qorqor ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka galmudug isla markaasina ku soo baxay madaxweynaha garabka ah ee Villa Soomaaliya jabku wadatay. si kastaba ha ahaatee Donald Yamamoto ayaa iminka leeyahay dhanka siyaasadda ee warbaahintaasi Mareykanka waxay leeyihiin dalkaas kaga soo baxo. Xaafna waxa uu leeyahay waa inuu dhexaad noqdaa. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo soo furatay carruur ay si khasab ah u afduubatay al-shabaab isla markaasina aad u yaryara. maamulka gobolka Bakool ayaa ka warbixiyay howlgal ay ciidanka xoogga dalka ka soo furteen carruur la sheegay in si khasab ah loogu askariyeeyay oo kooxda al-shabaab ay ku tababaraysay deegaano hoostaga gobolkaasi. gudoomiyaha amniga ee degmada Xudur mudane Ibrahim Shati oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in carruurtani ay gaarayaan ilaa 8 gacanta lagu soo dhigay kuwaasi oo lagu haysto deegaanka lagu magacaabo Doodaali ee gobolka Bay. sidoo kale wuxuu tilmaamay in carruurtani ay iminka bed qabaan inta badan oo si xoog leh loogu qafaashay dhulka miyiga ah ee gobolka Bakool isla markaasina la doonayay in la tababaro madaxana laga xado isla markaasina ay isqarxin sameeyaan. Mr. Ibrahim Shati ayaa sidoo kale intaasi ku daray in ujeedka uu ahaa in carruurta yaryar loo adeegsado dagaalka ay dalka ka wado kooxdaasi. xilliga la qabanaya ayuu sheegay in ay la socdeen mootar nooceeda loo yaqaan 3 lugooley ah oo mariyay inta u dhaxaysa deegaanada Abaal iyo 20 jirow isagoo oo carabka ku dhiftay in sidoo kale lala qabtay 2 darawal oo kaxaynaysay mootooyinkaasi. ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan carruurta lagu hayo saldhigga booliiska Xudur halkaasi oo su'aalo lagu weydiinayo. si kastaba ha ahaatee al-shabaab ma aha markii ugu horeysay ee dad qafaalata isla markaasina carruurtaas ay aad u qafaalataa ayaa waqtidii ugu dambeysay soo bixi jirtay. dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada dowladda oo dil naxdilna ka geystay saaka magaalada Muqdisho isla markaasina goobta isaga baxsaday darawal iska xamaalanaya isla markaasina $5 oo reerkiisa ku biila raadsanaya ayuu nafti dhaafiyay. wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan X Control Afkooye ayaa sheegay in goordhow lagu dilay wada motor bajaaj ahaa oo maraya halkaasi. dilka ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan agagaarka xarunta asluubta ee ku dhow isgooskaasi. goobjoogay ayaa warbaahinta u sheegay in marxuumka uu ku dhintay isla goobta kadib markii ay rasaas ku furay askariga ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa isla markaasina meesha uu ku dhacay lahu naxariiste. sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda oo ku mashquulsanaa furista wadada oo xilligaasi ka jiray jaam aad u xoogan isla markaasina ninka goobta ku baxsaday. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in markii dambe ay meydkii goobta ka qaadeen dad shacab ah in markii la waayay inay askar ama ciidamada dowladda halkaasi ka qaadeen mana cadda in la qabtay askarigii dilka geystay iyo in kale isla markaasina dad badan ayaa qabin halkaasi ka baxsaday. inta badan ciidamada dowladda ayaa dilal u geysta dhalinyarada kaxaysa mootooyinka bajaajka ee ka shaqaysta magaalada Muqdisho waxaana marar badan darawaladaasi ay banaanbaxyo cabasho ah ka dhigeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir isla markaasina dowladda nabad iyo nolol ay waxba ka qabanin. si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay oo noocaas oo kale loo dilay dhalinyaro. waxaa in bishiiba la dilaa boqolaal dhalinyaro ah isla markaasina wax cadaalad aan la soo gaarsiinin iyagoo dhalinyaradan inta badan bixiyo canshuuro aad u fara badan ayaa iminka si kasta cabasho u gudbiyaan dowladda federaalka Soomaaliya. xafiiska khayr iyo xafiiska farmaajo aysan jirin wax ka qabta isla markaasina ciddii wax dishaane halkaas iskaga baxsado. halka naga daawanaysa waa Calansida Media fadlan la joog oo daawararkii ugu dambeeyay. dhinaca kale wafdi iminka gaaray oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya mudane Mursal Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan ayaa gaaray magaalada Ammaan ee caasimada dalka Jordan. waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Jordan oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee dalka Jordan Ibrahim Al-Qur'an. wafdiga gudoomiyaha ayaa ka qaybgali doona shirka 30aad ee degdeg ah oo ay yeelanayso midowga baarlamaanka adduunka qaybtiisa carabta kaasoo looga hadli doono heshiiska qarniga ee dhawaan
ay wada galeen Trump iyo dowladda Israa'iil si kastaba ahaatee gudoomiyaha ayaa halkaasi shirkaasi ugu qayb galay isla markaasina asigoo matalaya dowladda federaalka Soomaaliya taas shirkaasi oo looga hadli doono heshiiskii ay wada galeen Donald Trump iyo ninka lagu magacaabo ninka ra'iisul wasaaraha dalka Yahuuda ayaa halkaasi lagu falaqay doona fadlan la joog oo daawar bixinada xiga